Axmed oday ayaa soo weydiiyay su'aasha ah sidee ayaan ku ogaan karaa waxa aan ku fiicanahay waxaana ila noqotay su'aal muhiim ah oo mudan in muuqaal laga sameeyo oo lagaga jawaabo sida awgeed muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa 3 hab oo aad ku soo saari karto waxa aad ku fiican tahay soo dhawow intaynaan bilaabin haddii ay tahay markii ugu horeysay ee aad soo booqato kanaalkan ha iloobin inaad subscribe tiraadid si aad ula socotid muuqaalada dambe ee aan soo gelin doono waxa aan noolnahay casri ay dunidu isbedeshay oo tiknoolajiyadu la wareegtay ku dhawaad wax walba waxa sahlanaatay sida warbixin lagu helo waqti yar oo kooban gudihii dunidiina waxa ay noqotay sida qol yar oo kale midaasi oo dib iyo dheef bay noole haddaan dhinac iska dhigo dheefteeda maadaama cid waliba taas ogtahay oo ka dharagsan tahay waxa dhibaatooyinkeeda ka mid ah inay qofka ka dhigi karto mid wareersan oo ay ka tiro bateen fikradaha badan ee uu maqlayo ama akhrinayo waxa kale oo qofku jahwareer ka qaadi karaa ra'yiyada kala duwan ee kaga imanaya dhinac walba tusaale ahaan haddii ay noqon lahayd saaxiibadii qaraabadiisa iyo weliba dad kale oo aanu garanayn kadib waxay taasi u horseedi kartaa qofka inuu iloobo oo uu meel ku tuuro ama uu garan waayaba shayga uu ku fiican yahay ee uu hibada Ilaahay u siiyay waxa aan shaki ku jirin in qof kasta oo koomkan ku uuman uu Alle gaar u siiyay wax uu dadka kale kaga fiican yahay tusaale ahaan haddii aad u fiirsato ardayda aad isku galaaska tihiin ama kuwa aad isla shaqaysaan midba wax ayuu ku fiican yahay mid ayaa ku wanaagsan dhinaca xisaabta mid kale ayaa la weydiiyaa su'aalaha diiniga ah mid ayaa ku dheereeya dhinaca farsamada ku kale waxa uu ku fiican yahay sida qorshe loogu dejiyo koox ee loo hawlgeliyo mid ayaa ku fiican gabayada iyo suugaanta sida awgeed aad ay muhiim u tahay inaad ogaatid waxaad adigu ku fiican tahay qaababka aad ku soo saari kartana waxa ka mid ah la fadhiisa naftaada baaritaan ku samee adiga oo adeegsanaya naftaada su'aalana isweydiinaya maxay tahay shayada ay dadku badanka kugu amaanaan sababtoo ah waxaad rabtaa inaad ogaato meelaha aad ku liidato iyo meelaha aad ku fiican tahay u fiirso naftaada shaqadee ayay jeclaysataa inay qabato teebaysa dhibsataa qodobka labaad weydii asxaab ama qof kale oo si fiican kuu aqaan kuna kalsoon tahay oo hordhig natiijada aad ka heshay qodobkii koobaad adiga oo weydiinaya inay sax yihiin iyo in kale miyaan u eegahay sidan ma ku fiicanahay shaygan ma u malaynaysaan inay wax ka khaldayn halkan ama ma jiraan wax aan ka tegay oo aan iloobay kuwaasi waa su'aalaha aad weydiin karto kadib asxaabtaadu waxa ay markaa kugu caawin doonaan inay sawiraan qofka aad shakhsiyan tahay iyaga oo markaasi isbarbar dhigi doona muuqaalka gudeed ee aad adigu naftaada ka bixisay iyo kadibadda ee ay iyagu markaasi kaa bixiyeen intaa kadib waxa ay kuu tilmaami doonaan waxa ay isleeyihiin inaad ku fiican tahay qodobka ugu dambeeya ku dhiiro inaad samayso natiijada ka soo baxday labada qodob ee hore adiga oo naftaada ku qancinaya inay tani tahay shayga kaliya ee ugu dhow inaad ka natiijo keento hadafkaaga kana saar maskaxdaada marka aad shaygaas qabanaysid oo iska ilaali inay naftu kugu sheekayso shaygan aad samaynaysid dadka adduunka jooga oo dhan way aqaanaan sida loo sameeyo maxaa kugu wareeriyay samayntiisa iska daa oo wax kale oo aanay dadku aqoon la soo bax run ahaantii fikirkaasi waa fikirka dad badan ka hor taagan inay horumar sameeyaan tusaale u soo qaado markan oo kale dadkoo dhani way yaqaanaan sida loo hadlo laakiin dadkoo dhan isku wax ma sheegaan iskuna xikmad maaha hana iloobin inaad Allah tala saarato isagana wakiilato sababtoo ah isagaa garanaya wax walba siday ku san yihiin mahadsanid inaad daawatay